maanta ay bishu 6 tahay oo isniina waxaan ka furnay trainingkii qoladii Baratakoolka maamuleysay Shirwaynaha xusbiga cadaaladda iyo daryeelka si fiican baan inoogu socotaa dhammaan waxa casharadii bixinaya macallinkii oo runtii si fiican u bixinayay marka runtii boqolkiiba boqol si fiican bay noogu socdaa maanta trainingkaasi run ahaantiina waxaanu Shirwaynaha xusbiga loogu talagalay waa dadkii maamulayay Baratakoolka qaabilsanaa marka runtii waan inoo socon doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waantana waa furitaankii maanta isniina oo bisha ay tahay 6 run ahaantii intaas ka soo gabagabeynaa assalaamu calaykum warahmatullahi maanta ay bishu tahay 6 December waxayna bilaabmay trainingkii wuxuu ahaayay aynu amba naqshadii Baratakoolka maadaama Shirwaynaheeni uu aad u soo dhow yahay uu yahay bisha 20keeda Shirwaynihii afraad xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID marka training fiican baa runtii inoo bilaabmay macallinkana si fiican buu inoogu muxuu ahaayay inoogu sharxi doonaa oo inoo fahansiin doonaa innaguna waxaan yeelan doonaa discussion kulankan oo kalena waxa weeyaan oo kulamada faa'iidada faraha badan leh runtii inaga qudheenu maadaama ay ka kala nimi degmooyinka magaaladu ka kooban tahay inaga qudheena isbarana oo anigu waa dhalinyaro badan oo aan runtii hore arag baan saaka bartay marka waxa muhiim ah charkalena siin doona inaynu ka faa'iideysano inaguna contributionka wixii aan hadhow toole ma garanaysaa si hawsha aynu u galeynayno ku naaqashno soo dhawaada kaxista badan inaga daaya casharka laga faa'iideysto waxaan soo jeedin lahayn ku sii dar la waxa weeye in aynu samaysano notice-kiina inaynu samaysano sida uu gudoomiyaha gobolku sheegay waxa maanta si rasmi ah inoogu bilaabmay tobobarkii u diyaar garowga Shirwaynaha afraad xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo ku beegan 20 December ilaa 21 ka dhici doona magaalada Hargeysa waa qaybo kamida shaqooyinkii Shirwaynaha ka horeeyay waxa fadhiya halkan 8 degmo ee caasimadda Hargeysa dhalinyarada qaybo kamida oo matalaya oo kamida 8 degmo caasimadda Hargeysa si ay tobobar ugu qaataan oo ay uga faa'iideystaan qaabka Baratakoolka iyo sida loo saxo mar walba xaflad la qabanayaba maadaama Shirwaynaha xisbiga UCID uu yahay Shirwayne aad u ballaaran oo 5 sanaba mar la qabto tobobarkan iyo tobobarro kale waxay ka mid yihiin sida loogu diyaar garoobayo Shirwaynaha aad baad u mahadsantiin saad uga soo qayb gasheen ee aad u soo ajiibteen waxa kale oo mahadnaqayaa macallinka tobobarka bixinaya Najiib Xasan Xaashi waxaan leeyahay casharo qiimo badan buu ina siinayaa annaga laftarkayga ka gobol ahaan waan ka faa'iideysananaa waayo wax mar walba ku anfacaya inaad barato sida mar walba Baratakoolka loo sameeyo ama nidaamka xafladaha sida loo saxo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin waan idin wada salaamayaa